militariga dhammaantii sidaas ayay qabaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed biliis iyo militari walow nabad sugid waxaynu danaynaynaa shacabka Soomaaliya rabitaankooda Soomaali midoodaan doonaynay Soomaali israacan la doonaynay maanta dib ayaa noo celiseen xasan maxamuud waanu garanaynaa oo soo qabtay kulan wacan wanaagsan idin ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeen idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamo gadoodsan ayaa iskugu soo baxay magaalada Muqdisho kuwaasi oo laga cabsi qabo in ay halkaasi fowdo ka dhacdo kadib ku dhawaaqistii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa sidoo kale ayadana garab socdo ciidamadaasi gadoodsan dad shacab ah oo ayagana ka mudaharaadayo dib u doorashada la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ay ku sheegeen in haatan dalku uu galayo xaalad aad u adag sidoo kale dawladda dalka Kenya ayaa ayadana waxa ay sheegtay in ay si weyn u soo dhaweynayso Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay sheegtay in ay wada shaqayn buuxdo iyo amni iyo sidoo kale walaaltinimada labada dal ay soo laaban doonto kadib muddo dheer oo labada dal ay isku dhacsanaayeen waxa ayadana la sheegayaa in wafdi heer caalami ah ay dawladda dalka Kenya ay u diri doonto magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka qayb gali doono caleemasaarka madaxweynaha la doortay waxa ayadana aad warkeena ku maqli doontaan ciidamada TPLF oo ayaguna sheegay in ay duulaan iyo sidoo kale dagaalo joogta ay kala kulmayaan ciidamada dalka Eritrea kuwaasi oo soo galiyo xuduudda magaalada Padama iyo sidoo kale magaalooyin lamida oo ka tirsan deegaanka Tigreega waxa la sheegayaa ayadana in ururka Ola oo maalmihii ugu dambeysay dagaalo xoogan ka wada dalka Ethiopia in ayaguna dagaaladii si laba jubaareen waxaana la arkayay ciidamo aad u hubeysan kuwaasi oo duulaano ku qaadayo ciidamada ama fariisimaha ciidamada dalka Ethiopia ay ku leeyihiin deegaanka Oromia dawadayaal qodobadaasi ayaan ku faafayn doonaa warkee haddii ay tahay markaad ku horeysay barteena aad soo booqato channelka subscribe saar oo gaarsii asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsantahay halka ka sii wada daawashada dawada sida warkeena ku maqlayseenba waxa dib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud kadib waxa dhacay in ciidamadii ku jira furimaha dawladda furimaha dagaalka ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay haatan bilaabeen gadood iyo kacdoon ay ugu hortagayaan dib doorashada Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ogeyn in dhaliilo badan ay ciidamadu u soo jeedinayeen tan iyo inta uu ka degay xilka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku eedeynayeen in uu asagu rabin in laga abuuro dalka Soomaaliya ciidamo qaran isla markaana mushaaraadka iyo sidoo kale waxyaabo lamid ah ay ka cabanayeen waxay haatan bilaabeen in mudaharaadyo ay bilaabaan ciidamo gadoodsan kuwaasi oo taageersan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la filayay ama laga cabsi qabay haddii madaxweyne Farmaajo dib loo doorto in ay halkaas dhibaato ka dhici doonto laakiin tan iyo xalay ma jirto wax dhacay walow uu dalku ku jiro bandow ama magaalada Muqdisho ay tahay mid bandow ah oo isku socodkii iyo sidoo kale dhamaanba wadooyinka waaweyn la mariyay la xiray haatan waxaa la sheegay in ciidamadani ay isku soo baxeen xaafadaha qaar magaalada Muqdisho kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen dhankaas iyo shabeellaha hoose iyo dhexe arintan lama ogo ama lama garan karo waxa ay ku dambeyn doonto waxa sidoo kale arintan in garab socda shacab ayaguna mudaharaadaya kuwaasi oo ku qaylinayo Xasan Sheekh Maxamuud down iyo ereyo lamida arintan lama ogo waxa sababay in ay dadka ka dambeeyay soo abaabulay laakiin xalayto waxa mudaharaadyo waaweyn ayaguna ay ka dhaceen magaalada Nairobi iyo sidoo kale magaalooyin lamida oo dalka Kenya ka tirsan waxa sidoo kale mudaharaadyadu ay qabsadeen meelo aad u badan xaafadda Isliya magaalada Nairobi xalayto ugu yaraan waxaa la burburiyay inta la ogyahay 5 gaari kuwaasi oo ay saarnaayeen dad ayagu u dabaaldegayay dib doorashada Xasan Sheekh Maxamuud waxaana haatan la sheegay in dad dhaawac ah ay ku jiraan isbitaalada lamana oga xaaladooda sida ay tahay dadkani waxaa maray ama jiray dadkii ka soo horjeeday guuldarrada la kulmay rabay ama u diyaarsanaa in ay dabaaldegyo dhigaan kuwaasi oo taageersanaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabi ahaan magaalooyinka ayadana dowladdeegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxa ayadana la sheegay in dad aad u tiro badan isku soo baxeen kuwaasi oo taageersan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin guushii ama guuldaradii halkaasi ka dhalatayna waxa ay sababtay in uu taageero badan ku kasbado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan noqonaya asagu in uu dib isku soo sharixi doono doorashada tan xigta oo la filayo inay dhacdo
2026 gebi ahaanba xaaladahaasi wixii kasoo kordho halkan ayaa nagula wadaagi doonaa inugu xidhnaada oo nala socda oo barnaamijka sii sheergareeyo gaadhsiiya asxaabtiina kaleeto haatan waxaa la sheegaya iyadana in wafdi heer caalamiya ay ka baxayaan dalka Kenya kuwaasi oo u hambaliyo iyo sidoo kaleeto caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yeelanaysa mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay halkaasi uga qayb gali doonaan wadamo badan ayaa arintaasi shaaciyay ka mid tahay wadanka Ethiopia ayagana sheegay in ay halkaasi u diri doonaan wafdi heer caalamiya kuwaasi oo booqan doona ama gaari doono xarunta dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxayna halkaasi caleemasaarka uga qayb gali doonaan sifo calaqaad cusub iyo sidoo kaleeto xidhiidh cusub ay u yeeshaan ayaga iyo dhigooda dalka Soomaaliya Abiy Ahmed oo gordhow hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya iyo afaaraheeda aynan geli doonin waxaan ogeyn 5 sano haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kursiga ku fadhiyay in gebi ahaanba Ethiopia ay ka ammaan heshay dhanka Soomaaliya isla markaana galaangalkii siyaasadeed iyo sidoo kaleeto faragelintii ay ka deysay oo ay ku mashquulsanayd dana ayada u gaar arintan dadka qaar waxay leeyihiin dagaalkii ka dhacay dalka Ethiopia ayaa sababay in Ethiopia ay dagaalkeeda ku mashquulsho isla markaana aysan soo faragelinin afaaraha Soomaaliya iyo sidoo kaleeto siyaasadeeda arintaasina Soomaaliya waxay ku heshay xasilooni siyaasadeed iyo sidoo kaleeto mid amni iyadoo ay jirtay in dalku uu yeesho ciidamo aad u qalabaysan kuwaasi oo la arkayay in dalka Soomaaliya uu u muuqdo dal haatan ka soo kabanaya dhibaatooyinkii haystay in ka badan 32 sano dalku waxa uu ka soo kabtay 5 sano u dambeysay faragelintii shisheeye iyo sidoo kale maaliyadii oo ayadana dhaqaale badan lagu lahaa dalka markii Xasan Sheekh uu ka degay dalka waxa lagu lahaa deymo aad u tiro badan oo aan la qiyaasi karin haatana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo administrationkiisa ama maamulkiisa waxa ay sheegeen in ay gebi ahaanba haatan dalku lagu leeyahay in ka yar $2 bilyan arintaasina waxa ay sababaysaa in gebi ahaanba haatan laga cafin doono $2 bilyan oo dalku uu noqon doono mid aan deyn lagu lahayn hadii maamulka haatan talada qabsaday ay wax isdaba marin ay sameyn arintaasi ayaana haatan amaanta koobaad ee madaxweynaha loo soo jeedinayo wadamada dariska iyo sidoo kaleeto wadanka gudihiisaba ay tahay waana arki doonaa wixii arintaasi ka soo kordho haatan waxa iyadana la sheegayaa warar saxaafadda ay baahinayso iyo sidoo kale baraha bulshada la isla dhex wareegayo in madaxweynuhu marba haddii ciidamadii ay gadoodsan yihiin xaaladuna ay adag tahay in asaga laftirkiisa uu isbedelo isla markaana uuba diidaba inuu resign gareeyo oo uu dhaho waan sii fadhinaya arintaasina laakiin lama fili karo oo xalayto madaxweynaha si isla markiiba markii la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud wakii xil wareejinta uu sameeyay isla markaana madaxweynuhu uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud ay horta la arin aad u adag oo ah in wadanku kala daadsan yahay in maamul goboleedyada laftirkooda ay xaalad adag ay ku jiraan oo madax adeeg ay qabaan arintaasi oo dhan ayuu madaxweyne Farmaajo ka dhawaajiyay arintaasina marnaba kama suurtoodo laakiin dadka qaar ayaa arintaasi filayo laakiin gebi ahaanba waanu arki doonaa waxa ay ku dambayso labada intaas aan ka baxnay Soomaaliya Ethiopia waxa ka jiro dagaalo xooggan kuwaasi oo u dhaxeeyo ciidamada ururka TPLF iyo sidoo kale ciidamada Eritrea oo la sheegayo in ay isku haystaan dhulkii Abiy Ahmed markii uu soo galay uu gooyay dalka Eritrea gebi ahaanba magaalada Padama iyo sidoo kale magaalooyin lamid ah ayaa waxa ay ka socdaan dagaalo xooggan kuwaasi oo la sheegayo in ciidamada dalka Eritrea ay soo galeen gudaha deegaamadaasi oo halkaasi ay ka wadaan afduub iyo sidoo kale baabinta dadka degan magaalooyinkaasi lama garanayo dalka Eritrea waxa haatan ku khasbaya inuu dagaal la galo ururkan la go'doomiyay ee dhibaatada ay halkaasi ka haysato laakiin dawladda Eritrea waxa ay soo dhoobtay ciidamo aad u tiro badan xuduudda ay deegaamadaasi la wadaagto arintan ayaana imaanayso xilli dalku uu ku jiro xaalad aad u adag oo maamulka Tigray laftirkiisa ay haatan sheegeen in ay gooni u goosad sameyn doonaan isla markaana ay ka go'i doonaan dalweynaha dalka Ethiopia hadii waxa ay sheegeen loo fulin waayo lamana garanayo ama ma aysan sheeganin waxa haatan ay ka codsanayaan dawladda federaalka Ethiopia markii laga reebo in ay xukunka isku haystaan dalka Ethiopia haatan dagaaladiisa waxa ay galeen bishii 19aad ama andhahe sanad iyo 9 bilood in ku badan xaaladu aad ayayna u adagtay ururka oo la laftirkooda dagaalo xooggan ay wadaan ayagoo la sheegayo in ay cagta mariyeen fadhiisimo ay lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ama ay ku lahaayeenba deegaanka oromada haatan xaaladda dalka Ethiopia waxa uu galaya mid hubatay laana waxaad moodaa in dagaaladu si laba jibaara ay u sii laba qarxayaan
dabadayaal wixii kasoo kordhana halkan ayaa nagula wadaagi doonaa haddii aad janalka ay tahay markaadii kugu horeyso bartan aad soo booqato janalka subscribe saar oo gaarsiiya asxaabtiina kaleeto qodobadaasi ayaana u dambeeyey warkeena intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaa inaga tegayaa sidaas iyo ammaano alla